السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي قالي قاعد شلك هذا ونسوي شلكنا يلا مو إن ما تو حالك بسفر سلامينا صاحبكين سيكي oo ay tahay maalintii iskuulkeen dambeysay ee aanu Hargeysa wada joogno iskuulkeen dambeysay lahaanay soo habaare magaalada iskuulkeen soo laabanaya waayay maalintii dambeysay waan jeclaan waqti inta ka badan inaan magaalada sii joogno oo aan meelo far badan ka soo muuqano laakiin waxa ku soo baxday saaxiibkeen oo qof familka kamid ah ayaa xanuustay marka sidaa darteed ayuu u baxayaa safarka degdega annaguna waan jeclaan inta ay ka badan bayna wada joogna saaxiibkay CK laakiin waqtiga ayaa saamixi waayay oo waxaan rajeynayaa insha Allah inta ay ka badan bayna kulmi doono saaxiib oo aliin loo dheh ayaale iyo raamsade iyo walaalka Yunis aad iyo aad idinka imaad celinaya sida quruxda badan aad maaragtay halkan igu soo dhaweyseen maalintii ugu horeysay halkan imid ilaa maanta oo aan ka baxayo sida garabkayga u taagneedeen runaantii waa mid weligii aan iloobi doonin walaalo qalbi furan oo aan weligii qalbigayga ku hayn doono waxaan kale u mahad celin doonaa dhammaan reer Somaliland khaasatan dhalinyarada oo aan leeyahay taariikhda aad xusu doonto sida quruxda badan aad igu soo wada baxdeen isku mid maaha shooyadu isku mid maaha waqtiyadu wuxuu ahaa habeen ka duwan habeenadii nolosheeda hore u soo maray habeen ka duwan habeenadii wadamada kala duwan aan tagaan shooyada ku soo qabtay waxay ahayd meel magaalada ka fog meesha showgu ka dhacayo oo run ahaantii la lahaa ninkan waa youtuber meeshu magaalada ka fog tahay ayaa u tagi doona hoolku wuxuu ahaa hool horey shooyadii aan u soo qabtay laba jibaar ku ah Afrika iyo Aasiya iyo Yurba run ahaantii waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa habeen taariikhi ah oo lama iloobaan ah taariikhda baal dahab iga galay dhanka youtubernimo iyo towarkii aan qabanayay youtubernimo ilaahay ka sukowna taa waxaa suurtageliyay labadan dhalinyarada arkayso oo run ahaantii dhalinyaro maaragtay qalbigoodu aad u wanaagsan yahay marka muuqaalkooda fiirso dad badan baa waxay lahaayeen warsiikay ciyaal jaamacadii buu ku degay ardaydii buu ku degay waxay sugayeen rag waaweyn iyo waxa inaan maaragtay ku dego oo maaragtay aan la joogo runtii aad aan ku mahad celinayaa laba garab oo waxa tiin oo walaalaheen weligii aan iloobi doonin sida quruxda badan halkan igu soo dhaweyseen oo always garabkayga u heedeen waxaan kale halkan ugu mahad celinayaa walaalkay Balemi waxaan kale halkan ugu mahad celinayaa walaalkay Faisal waxaan kale halkan ugu mahad celinayaa dhammaan fanaaniinta aniga isku soo duubaya qaasatan Axmed Wali Furinle the legend DJ Adam Abdikariin Ali Shaax iyo walaalkay anshax oo aan leeyahay run ahaantii weligii idima iloobin doono najma nashaad meesha ka saarin ayade oo iyagana maaragtay aan leeyahay run ahaantii always qalbigayga ku noolaan doontaan Somaliland waa gurigaygii waa dalkayga waan soo laaban doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo wallahi qalbigayga kuma sama in aan hadda baxo waayo waxaan rabay inaan gobolada ku soo wareego oo aan kalibiyo qurux badan soo sameeyo familkayga qof kamid ah awgii oo xanuunsan ayaan ku kari waayay in damaashaadka halka aan ka sii wado I love you so much and leeyahay dhammaan reer Somaliland insha Allah inta ku kulmi doono fiidiyoga xiga khayr badan joog waxaan kale isagana maaragtay saad aragtaanba walaalkay iga yar Bashiir Cabdi Baska bis naga dheewaan buubi rabnaa oo isagana garabkayga ah wiilka dhalinyarada aragtay maaragtay daada yar leh oo isagana halkan aan isku baranay walaalkay waa nin dadaalayo oo dhalinyaro ah CK family waxaan rajeynayaa wiilkan inay soo dhaweysaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo annagu naga mid yahay waa walaalkeen dhalinyarada youtuberadu ka mid yahay waa nin aad iyo aad u xishood badan waa nin aamusan laakiin sidiisa kale fani waaye laakiin waa nin xishood badan Bashiir Cabdi Baska walaalkay adigana maaragtay waqtiga wada qaadanay waa kaaga mahad celinayaa hal iyo labo wallahi maaragtay hadda dad iswaay maaragtay waqti baa kala geeyay si fiican sida hadda aan sheegnay oo kale arin degdeg ah kugu imaaday aad ku bixiysid marka wallahi waxa ku dhiilayaan dawaalid meesha ka imaaday nabad ilaahay kugu geeyo insha Allah hadda markii nuskeeda mis ma handi waxaan dunidan diyaarad baan kala raacaya loo meel bis baa la gal aaday maana laakiin mar walba la isla joogaa waa isku imaan doona insha Allah